Ku soo biir kanaalka Sahanka Dunida oo subscribe saar haddii aad ku cusub tahay. Assalaamu calaykum. Falastiin waa mid ka mid ah wadamada Carbeed ee la qabsaday oo ku yaala bariga Carabta ee qaaradda Aasiya. Taariikhdeeda oo dhanna waxaa xukumay ilbaxooyin iyo ummado badan sida ilbaxnimadii reer Kancaan, gumeysigii Masar ee Fircoon, ilbaxnimadii Giriiga, gumeysigii Roomaanka iyo Byzantine, qabsashadii Bershiya, xilliyadii Islaamka, gumeysigii Ingiriiska iyo qabsashadii Israa'iil. Waana ilaa iyo maanta Falastiin juqraafi ahaan baaxadda dhulkeeda waa 26,990 kiiloomitir square. Waxa ay juqraafi ahaan ku taalaa dhinaca koonfur galbeed ee qaaradda Aasiya, waxayna xuduud la leedahay boqortooyada Urdun, Jamhuuriyadda Suuriya, badda Mediterranean-ka, Jamhuuriyadda Carabta ee Masar. Dhanka dadka waxaa ku nool 11.9 milyan sida lagu sheegay tirakoobkii sanadkii 2011. Dadka deganna waxay ku hadlaan Carabi, taasi oo ah luqadda rasmiga ee ay ku hadlaan. Juqraafi ahaan Qudus waxay ku taalaa bartamaha Falastiin, qaybta badda Mediterranean-ka, waxayna kaalinta koowaad kaga jirtaa magaalooyinka ku yaal Falastiin marka loo eego aagga iyo tirada dadka, iyadoo dadka ay ku nool gaarayaan 125,156 sida laga soo xigtay tirakoobkii 2012. Falastiin waxay ka kooban tahay 16 gobolood, waxaana ka mid ah Gaza, Jerusalem, Jenin. Magaalada ugu da'da weyn waa Jericho. Magaaladani waa magaalada ugu faca weyn ee Falastiin maadaama ay soo jirtay in ka badan 10,000 oo sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise. Isla markaana juqraafi ahaan waxay ku taal dhinaca galbeed ee webiga Urdun. Magaaladani waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu horeeyay ee laga aas-aasay bulshooyinka, waana meesha ugu horeysay ee aadanaha adduunka. Magaaladani waxay ahayd waagii hore barta ay maraan ganacsatada iyo gawaaridooda, waxayna xiriirisay dhammaan bulshooyinkii qadiimiga ah, kuwaasoo ay ka mid yihiin kuwa Masar iyo kuwa Levanta iyo kuwo kale badan. Lacagta rasmiga ah ay isticmaalaan lacagta shaweelka, diinaarka